kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteennii faaqidaada waxaana daawadayaal ku soo qaadan doonaa maanta qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin magaalada muqdisho ayaa laga qorahayaa 17 degmo ee magaaladaasi degmo walba 400 oo dhalinyaro oo lagu tilmaamay inay yihiin dharcad lana shaqayn doonta ama lagu tilmaamay macawisleyda dharcada kuwaasi oo ka howlgali doona deegaanadaasi si ay u sugaan ammaanka magaalada muqdisho dhanka kale magaalada muqdisho ayaa laga qabanqabinayaa banaanbax weyn oo looga soo horjeedo kooxda al-shabaab madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho gaaban ku tagay dalka Eritrea si uu soo fardaamiyo ciidamadii faraha badnaa ee dalkaasi loogu qaaday 4 sano ka hor tababarka waxaa kaloo daawadayaal ku faaqidi doonaa ama aan diiradda ku saari doona dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhaca shabeellada dhexe galgaduud gaar ahaan deegaanada wabxo oo la doonayo in lagu qabto magaalada Elbur haddaba qodobadaasi iyo kuwa kaloo xiiso badan ayaan daawadayaal ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena faaqidaada waxaana u diyaar ah oo igala qayb qaadanaya saaxiibkay Gooni axmed waa mahadsantahay haddaan ku hormarno dagaalada ka jira Soomaaliya weli waa halkoodii ururka al-shabaabna marka dambeys waa la sii bacsanayaa maanta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka bixeen deegaanka wabxo ayagoo ku sii wajahan Ceelbuur marka deegaano ka sukaya Ceelbuur ayay waxay ka sameeyeen howlgallo mina baaris ayayna ka sameeyeen jidka waxaa lagu leeyahay Ceelbuur iyo wabxo waxay isku jiraan 38 kilomitir ilaa iyo 38 kilomitir waxay ka buuxiyeen miinooyin marka ciidamadu waxay sameynayaan wadada geesaheeda ayay socdaan qolooyinka mina baarista ayaa wadada hareeraheeda socoto baarayso marka waxay sameynayaan baaritaan aad u culus marka dagaalo goos ay dhowr mar ay la kulmeen jidadka dagaalo ayagana dagaaladiina way ku guuleysteen waa niman ku dhufo ka dhaqaaq sameeynaayo markay ku ciidamada xabadeeyaan markiiba waa lagu yaacaa marka ciidamo ay uba baacdhigi karaan ma hor istaagi karaan ma aha hadda waxaa la sheegaya marka inay kusii dhow yihiin deegaanka dac oo 20 kilomitir wabxa u jirto halkaas ayayna kusii siqayaan waxaana ugu dambeyn la leeyahay berri dambe maalin jimcaha ama sabdiga Ceelbuur ayaa la isku wareysan doonaa ururka al-shabaabna waa isku dhamaadeen waxa hadda ciidamada tartiib ugu socdaan waxa waaye waa miinooyinkaas wadooyinka ku aaseen inay ciidamada ku halaagsamaan ay laga cararaya maadaama ay technique fara badan ay wataan ciidamada baaritaan marka hal ah oo step ah oo jidadka lagu baarayo iyo waxyaabaha jidadka miinada midna jidka caadi lagu aasaa midna miina jalfisa la dhahaa wadooyinka geesyada lagu aasaa way soo boodaa marka waxaas oo dhan baaritaan ku socdo ciidamada danab ayaana baaritaankaas wado marka hadda waxaa lagu sii dhow yahay deegaanka dac oo hadda 8 kilomitir loo jira dacna waxay Ceelbuur u jirtaa 18 kilomitir hor u sheegnaba marka dhankan Shabeellaha dhex markii la yiraahdo ciidamada beesha Abgaal ayaa la soo bandhigay ayagana ciidamo kale cusub lagu biiriyay deegaanka Masaajid Cali Guduud ayagana aadan yabaal ayay ku sii dhow yihiin dagaalna halkaas waa laga baqay inuu ka dhaco berri dambe waqtiga noqoto dagaal ay meesha ka dhici doono ciidamadana waa laga saari doonaa aadan yabaal iyo Ceelbuurna isku mar in la qabtaa la rajeynaa ninkii Axmedow Gooniyo waxaa jira in degmada Ceelbuur oo istiraatiiji u ahayd kooxaha al-shabaab ay gabi ahaanba isaga baxayaan oo ay difaac ka xidhanayaan duleedka degmada Ceelbuur marka ma laga yaabaa in ay dadka shacabka ay u diidaan inay ka qaxaan si ay u xajistaan degmadaasi maxaad warkaysaa horta dadka shacabka deegaanka Ceelbuur jooga horta waa dadka intooda badan way ka qaxeen al-shabaabka naftkooda ka qaxeen Ceelbuur marka shacab war ma laha shacabkii waa qaxeen qaarkoodna waa shabaab dadka meesha deganba qayb kamid waa shabaab oo nimankana ku dul habsaday fikirkii lagu shubay 12 sano la dul degan yahay marka inta shacabka iska caadiga ahaadna waa qaxeeno oo hoosta guuxiso ilaahu nimankana ka cidhahay hoosta ka qoslayaan waxay ilaahu ciidamada marno keen qaybtii shabaabka taageersanada shabaabka la qaxeen marka hadda waxaa la leeyahay meelahaas magaalada banaanadeeda ay shabaabka godad ka qodqoteen oo waxay iska dhigayaan rag difaac gali doon laakiin difaacoodu ma sii dheeraan doono dagaal hal mar oo ka dhici kara Ceelbuur laakiin meesha ay ka difaacanayeen Ceelbuur waxa dil soo jibiyay aadan yabaal iyo Ceelbuurba gacanta way ka baxaysaa mar dhow maalmaha soo socdo waa lagu kala baxa marka al-shabaab waxaan u maleynayaa inay markaan kadib qayb isdhiibtay iyo qayb maxaa la dhahaa hawada ka baxday qayb la dilay inay noqon doonaan wax kale oo furan malaha qaybta iyada lagu hareeraysanayna way isdhiibtaa leeyahay oo hadda ciidamo 70 gaar ah isdhiibay oo isku dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya marka waa al-shabaab waa isku dhamaadeen dhanka kale haddaan u gudubno caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in 17 degmo ee caasimadaasi laga bilaabi doono ama loo qori doono ugu yaraan degmo walba 400 oo dhalinyaro ah kuwaasi oo la doonayo inay noqdaan dharcad ammaan ka suga oo cidda ay garan waayaan la kaca arrimahaas maxaad warkaysaa iyada horta Axmed waa fikirka ugu wanaagsanaa laba qorshe ayaa la soo jeediyay labada qorshe mid waa horta midka Cali Racli ayaa hormuud ah waana mid banaanbax lagu la taageerayo ururka al-shabaab banaanbaxaas marka waxaa loo diyaariyay dad 17 degmo oo Cali Racli la shiray in walba degmo walba inuu keeno dad shacab oo banaanbax ka qayb qaato markii ugu horeeyay oo shabaab lagu banaanbaxayo 17 sano shabaab jiraan markii ugu horeeyay lagu banaanbaxayo
maysan dhicin shabaab dooni mayna iyadoo la dhahay weli ma maqasha askari ciidamada dowladda ka mid ah hadduu qof dilo 300 oo qofooda soo istaagayso dhehayso in ciidamada dowladda dooni mayna iyo banaanbax soo dhigay weli 300 oo qof ama 500 oo qof inta la dilay waxa la waayay dad banaanbax sameeyo ama shabaab ku kac waa la waayay marka hadda ugu dambeyntii waxa leeyahay magaalada Muqdisho daljirka dahsoon ilaa iyo soobe waxa isxiri doono maxaa la yiraahdaa banaanbaxa looga soo horjeedo al-shabaab taasoo ay sameyn doonaan shacabka Soomaaliyeed hormuudna ka noqon doona maamul gobolka Banaadir ayagoo dhahayo al-shabaab dooni mayno hal cirib taro wadanka laga saaro marka waa guul aad u weyn oo kamid ah guulaha hadda dowladda Soomaaliya ay gaartay waxa kale oo hadda la diyaariyay in 17 degmo baaritaan guri ah oo raaf ah la sameyn doono dadkii shabaab ay soo galay magaalada Muqdisho iyo shacabkii oo shabaabka ay macnaha islaamoodii ilmahoodii iyo raggii soo galayba kulligood baaritaan lagu sameyn doonaa baaritaan guri oo raafka la dhihi jiray Kenya iyo meelahaas ka dhacay la dhihi jiray raafi jiray dadka kii camal la dhici doono oo guri loo baarayo markaas kadibna waxa la sameyn doonaa 17 degmo walba waxa loo qori doonaa 400 oo qofood degmo walba waxay kooban tahay 4 waaxood wax walba 100 qofood laga rabaa marka degmo walba hadii 400 hesho magaalada Muqdisho waa ciidamo aad fara badan waa dhar cad Muqdisho lagu yaraa laakiin waxa lagu yiri doonaa macuusleyda Muqdisho laakiin si dhar cad ahaan ay u shaqeynayaan shacabka ku dhex jirayaan bastooladan waa loo dhiibaa hay'adda nisa barnaamijkaas wado programkaas marka labadaas barnaamij hadii la hirgeliyo gobolka Banaadir wax badan iska bedeli doona Axmedow dhanka kale waxaa soo baxaya wararkii ugu dambeeyay ee magaalada naga soo gaadhay Muqdisho in madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaray dalka Eritrea si uu u soo daayo ama uu soo daadgureynta uu bilaabo ugu yaraan 5,000 oo dhalinyaro oo 4 sano ugu dambeysay daawadayaal ku xanibnaa ama ku tababaranayay dalkaasi Eritrea haddaba arintaasi sidee dowladda Soomaaliya u qorshaysay gooni horta ciidamada Soomaaliyeed halkaas ku sugan 5,000 waa sax ciidamadooda tababarkooda way dhameysteen wax walba u dhameystiran yihiin in magaalada Muqdisho ku soo laabtaan tababarka ay dhameysteen ee shacabka Soomaaliya ugu faa'iideeyaan dagaalada iyo howlgallada socdo ee Soomaaliya ka socda in ay ka qayb galaan loo diyaariyay marka dowladda federaalka Soomaaliya waxay la soo xaajootay wadamo badan oo Mareykanka kamid yahay in dhaqaalaha bixin doonaan Eritrea dhaqaale badan loo ballan qaaday marka waxay kala soo xaajoonayaan qaabka ciidamada loo celinayo iyo sida step-ka ciidamada loogu celin doono wadankoodii xerihii in sida loo dhisi doono waxyaabo badan ka wada xaajoonayaan ciidamada mar ka dambeysay qayb ayaa loo soo gudbin doonaa in Eritrea way ka heshiinayaan madaxweynaha Soomaaliya marka waxa la yiraahdaa Xasan Maxamuud howl aad u fara badan oo qabtay maadaama ciidamada 5,000 ahayd oo Soomaaliya ku soo celinayo al-shabaabna oo Soomaaliya ka saaray haddana wax aad u weyn oo muuqda oo sameeyay Xasan Maxamuud waxa la yiraahdaa madaxweynaha dadaalkii laga filayay mid ka sii laba jubaaran ama ka sii saddex jubaaran ayuu sameeyay waxaan dhihi karnaa marka u malaynayna Xasan Maxamuud markaan in muran uu gali doono madaxtinimadiisa maadaama howl aad u culus oo qabtay wadankan wax badan u taray Axmedow waxaa jira in howlgallada marka ay bilaabeen gooniyow ay jireen in ma garanaysaa dad fara badan oo siyaasiyiin ah hay-ado fara badan oo dalka Soomaaliya inta badan gacan togaaleyn hoose ku hayay in ay doonayaan in ay fashiliyaan howlgalka ka dhanka kooxda al-shabaab xagee ayada marka laga marhayaa maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo Jubbaland wax dagaal ma qaadeen maxay damacsan yihiin hadda waxaad moodaa deegaanada Hirshabeelle iyo maxaan ku dhahay maamulka galmudugba in haatan laga sifeeyay kooxaha al-shabaab ilaa iyo 70 dad kor u dhaafaya ama kooxaha al-shabaab dad kor u dhaafay 70 in haatan gacanta ay isu soo dhiibaan oo gacanta dawladda ay ku hayso arrimahaas maxaad ka leedahay horta dadka gacan bidixinaya dagaalka guushooda waa soo dhamaatay wax u kala socon doona mala Xasan Maxamuud wuxuu dhagaha ka fureystay qolo walba oo dagaalka gacan bidixinayso wuxuu dhahay qof dagaal gacan bidixinaya ama ka soo horjeedo wax saameyn ay wax xiriir ma wadalin mid kale Cali Jeeto magaalada Muqdisho ku sugnaa waxa la weydiiyay su'aalaad fara badan oo ku saabsan shabaabka ilmahooda halalay taasoo lagu qabsaday jawaab kulul ayuu ka bixiyay wuxuuna yiraahdaa shabaabku ayagaba ilmaha shacabka oo Soomaaliyeed way laayaan marka hadii ilmahooda la xanuunka dareemi doonaan oo marka Cali Jeeto waa nin safety banaanka taalo hadda marka Cali Jeeto wuxuu ku laabanaya deegaankiisi waxaana la sheegay dowladda Soomaaliya in ay u qorsheynayso Cali Jeeto inay ka dhigi doonto abaanduulaha ciidamada howlgallada shabaabka lagu dagaalayo ninka abaanduulaha u ah Soomaaliya dhanba in laga guudba ha marka ninka wada lacayo hadda waxa jago weyn in loo dhiibo laga yaabaa maadaama shaqo badan oo qabsaday marka dadka dagaalka gacan bidixinaya dowladda Soomaaliya ka soo horjeesatay maamul goboleedyada Xasan Maxamuud fikir fiican uu sameeyay wuxuu bilaabay meesha asaga oo ka soo jeeday ee beelaha hawiye inuu shabaabka ka sifeeyo beelihii asaga oo ka dhashana oo diro si ay shabaab isaga soo saaraan marka beelaha kale wuxuu leeyahay ku daysada hadaa ku dayso weysiina annaga idinka ama annaga shaqo idin qabanayno macallinka idin ku dareyna oo sheegay maamul goboleedka dagaalka qayb qaadan waay macal asaga cunayna marka maamul goboleedka wadnaha farta ku hayaan maamul hadda dhahaya Xasan Maxamuud oo isku dhigi karnaa ma jiro ninka shabaab soo leefay 17 sano wadanka haystay maamul goboleedna umada haya hawada ku baarna marka xalana Xasan Maxamuud hanbaliyo dowladda Soomaaliya hanbaliyo aad iyo aad ayuu maatan yahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya gaar ahaan koonfurta waliba dagaalada ka socda
koonfurta ee lagula dagaalamaya kooxaha al-shabaab oo in ka badan 17 sano ku sugnaa koonfurta Soomaaliya. daawadayaal barnaamijyada aan idiin soo gudbino maalin walba waa xogaha dhabta ee ka socda koonfurta Soomaaliya iyo qaabka loola dagaalamayo, waxaana inta badan ay noo soo gudbiyaan saraakiil sarsare oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ka tirsan iyo waliba hay-adaha nabad sugidda. marka waxa weeyaan wararka aan idiin soo gudbinayno waa warar sugan. waxaan idinka rajaynaynaa in aad la wadaagtaan ummadda Soomaaliyeed si uu codadkan ama warbixinadan ay u gaadhaan meelo fogfog, inaad ku sheergaraysaan guruubyada iyo meelaha ay kolba idiin suurageli karo. waad mahadsantiin daawadayaal. intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa anigoo ah Farogod iyo saaxiibkay Gooni, sidaa iyo nabadgelyo.